السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة الجنة كان منير مرسيكو حيران أحبابي سو دوادا وولالكين ومسكينكي الله وحرجينيا إن نواد قبطان الحمد لله أنا سيدو كله إلهي عفماتك فرحاد يهنونك هنوز زياديو إلهي دمان تندمبي أنا دافو انت اسكدي بأحبابي ما أنتو حربا إن كهدلو مع مصوماليات أو موقال فيسبوك لو رجينا أكسو أركي إن أرنتاس كهدلان ربا مع مداس وحي شيغانيسا إن أي دشي لبا عرور أيضاً وحننا تاوانين أما أيضاً ولي قرسنين يعني سيدي النبي الله عيسى عليه السلام أو دشي أو كله إن يعرور أو دشي أو أي شيء جنيسا قفك ورئيسنا يقدم رأى أيضاً ما شاء الله أي لذا هاي مركب مقال كاس مركورة وحن ربائنا وحير كشيكين وقابك النبي الله عيسى عليه السلام أي أو دشي مريم بنت عمران كدبنا وحن كهات لدونا مردعي كرتائن سيدا سوكله أي يعني هواي سوماليات كله أما هوايوينكا ومد النبي محمد كمدا إن إساس وكله ودشوا أيضا ولي وحتى تاسن روا إن كهذلو كدبنا مقالك إذا توصدونا أدو إلهي كران نقضه مرك إن شاء الله أنكو هرمرنا نبي الله عيسى عليه السلام هو يسوع على أورنجري مريم بنت عمران يعني وحي أهد هو ناكسن وعفيفة قبر دورسن أي أهد نبي الله عيسى أنا أيضا الشيء أيضا وليبا waxnina ama nin raga aan taabanin jirkeeda horena waxay u ahayd gabar dhoorsan weligeedna nin ma taaban sidaas ay tahayna waxay dhashay nabi ilaahay ciisa calayhi salaam arintaas markii jibriil calayhi salaam uu u sheegayay nabi ilaahay markii yani loo bishaareynay malaa'iktii u bishaareynayay maryama al-adra inay dhalayso ciisa ayadoo wax taabanin marka hore waxaa lagu yiri aayada quraanka waxay leedahay ida qalat al malaa'ikatu ya maryam inna allaha yubashir bi kalimatin minhu ismuhu al masih isa ibn maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ayaa lagu yiri ay marka way la yaabtay waxa loo sheegay in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bishaareynayo inan masih isa ibn maryam la dhahayo yani isa ibn maryam in loogu bishaareeyay malaa'ikta ugu bishaareysay ayday arintaas la yaabtay oo way la tacajibtay kadibna waxay tiri qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar sida ilmo igu sugnaanayaan anagoo nin wax bashar ay taawanin qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha sidaas ayu ilaahay wuxuu doono u abuuraa ida qada amran haduu wax xukumiyo fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kaliya wuxuu dhahayaa kun fayakun ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabo abuuraa sidoo rabo abuuraa amarkiisa dhanba waxay ku jirtaa bayna al-kaafi wan nun kun wixii kun way ahaanayaan fayakunu ahaana kun aha fayakunu ahaanaya qaabkaas ay nabi ilaahay ciisa ku dhashay ayadoon wax bashar taawanin qisada aad u dheer tahay waa mucjisooyinkii nabi ilaahay ciisa kamida waliba inuu ku hadlay yani fil mahdi sabiya yani asagoo markaas yar ayuu hadlay markii ay qoomkeedu kula soo laabatay oo ay yani xoogaa isku dayeen inay takooraan ay farta ugu fiiqday kadibna wuxuu ku hadlay umush ayuu ku hadlay nabi ilaahay ciisa ayadan mucjisooyinkiisa ay kamid tahay inuu aabalaan dhashay inuu umush ku hadlay iyo mucjisooyin kale oo aad u waaweyn oo cajiib ah yani oo ilaahay idinkiisa waxyaabo badan ku sameyn jiray qisada nabi ilaahay ciisa yani aad sidaas ay u barakeysan tahay una weyn tahay ilaahay ayaana yani adoomadiisa tusayay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba awoodo inuu hooyo aabalaan ka dhalsiin karo iyo nabi ilaahay aadam oo kale in aabi iyo hooyo midna uusan lahayn hooyo xaaba in yani nabi ilaahay aadam feertiis laga abuuray waxyaabahaas dhan waxyaabo oo yani anagana lagu tusayo waa inaan waxba ahayn oo ilaahay awoodiisa weyn tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala yani wax walba uu awoodo marka mucjisada nabi ilaahay ciisa mucjisooyinkiisa labadaas ka mid ah sidoo kale nabi ilaahay ciisa wuxuu kamid yahay ulul azmiga anbiyada Allah nabi ilaahay Muhammad nabi ilaahay Nuux nabi ilaahay Muusa nabi ilaahay Ibrahim iyo nabi ilaahay Ciisa shantaas nabi ayaa la isku dhahaa ulul azmi waa afdal nabiyada ugu fadli badan waa ayaga waxa ugu sii fadli badan nabi ilaahay Muhammad ugu fadli badan marka ulul azmi uu kamid ahaa marka mucjisadaas waxa iska lahaa oo nabi ilaahay Ciisa ay waxay sheeganaysaa hooyadan Soomaaliyeed in ay iyadana ku dhalatay ama ay dhashay ilmo aabalaan ah wax dhici kara maya wax dhici kara ma aha walow ilaahay subhanahu wa ta'ala uu awoodo laakiin hore u dhacday
taasna mucjise ahayd marka kolay maamadaas ayadaa sheegi doonta gadaal baa laga wareysan doonaa haddii suurtagal noqoto kolay tvda Soomaalida waa ka warsugeynaa laakiin waa wax naga yaabiyay anaga in laba wiil hooyo ay sheegato hooyo Soomaaliyeed laba wiil inay aaba la'aan dhashay aniga marka waxaan isleeyahay haddii aan ra'yigayga ka dhiibto hooyooyinka Soomaaliyeed ee weliba qurbaha ku nool maamadan qurbaha joogta waxaa dilooday oo aad iyo aad yani u dilooday cudurkan stresska la yiraahdo depressionka bipolar disorder isku dhaha waa yani maamooyinkaas hooyo aabayaalkii ilmihii ku dayacay way rafaadsan yihiin yurub way ku rafaadsan yihiin ayaga kaliya ilmihii koriya marka waxaan isleeyahay dhankaas ama cilada ka tahay oo aabihii ay inkaraysaa oo leedahay nabi ilaahay Ciisa oo kale ayaan u dhalay labadan ilmo muuqaalkan waa idin tusi doonaa marka hooyooyinka waxaan leeyahay hooyo Soomaaliyeed tahay oo barakeysan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala darajo siiyay oo islaamka dhigay muslimka dhigay ilmo Soomaaliyeed oo muslimiina Ilaahay ka dhali ku siiyay hooyo hadii uu ninkii ka tago oo kugu dayaco ilmaha Ilaahay u kaasho garab weydiiso ilmaha u xiro dhaxda ku dadaal korintooda quraanka bar diinta islaamka bar ducada mar walba badi in Ilaahay kugu garab siiyo in ilmahaaga aad koriso diintan aad barto cilmiga kale ee maadiga ee wadamadaas aad joogtaan si fiican u bartaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas uu kugu taageerayaa nin kale ha u baahanin hadiiba ay yani badatay in nimanka Soomaaliyeed ee dibadda jooga ama qurbaha jooga ay hooyooyinka ku dayacaan caruurta hadiiba taas dhacdo oo ay badan tahay oo ay soo laabatay ilmihiina idinka hooyooyinkiina Soomaaliyeed ilmihiina idinka korsada ku dadaala korintooda ku dadaala xanaaneyntooda diintiina bartaan quraankiina bartaan idinkana mar walba gacmaha kor u taagta Ilaahay barya quraanka akhriya dhageysta idinka xataa quraanka dhinaca ka barta waqtiyada firaaqada aad leedihiin halkii aad live soo gali lahaydeen ama sidaan oo kale u hadli lahaydeen ama maxaa lahaa aad niman Soomaaliyeed caay lahaydeen ninkan waaba xumaaday wax laga caay ma leh asaaba caaysan marka uma baahna in lagu mashquulo waxa u baahan in lagu mashquulo ilmaha adiga dhashay iyo adina isku mashquulso caafimaadkaaga qalbigaaga sidii uu yani caafimaadkiisu wanaagsanaan lahaa maskaxdaada inaysan isku dhaxyaacin inaad stress gelin quraanka barta ilmahana bara ku dadaala Ilaahayna mar walba barya hadii aad Ilaahay ku xirantaan quraankii barataan ilmihiina aad bartaan oo Ilaahay mar walba aad duceysanaysaan oo Ilaahay baryaysaan insha Allah Ilaahay meeshaas idinku hoojinay laakiin hadii aad cagsiga sameysaan oo ilmihii markii idinku dayaco ama ninkii uu naag kale Soomaaliya ku guursado oo fikirtaan oo iswaashaan oo social media soo gashaan hadhow ilaa heer waxa gaareysaan aad meeshii si toos ugu waalataan nimankaasna idinma naxayaan idinma jixinjixayaan idinka muhiim ay tahay in caafimaadka ilmihiina ka fikirtaan nin ha ku mashquulin calafaa idin kala geeyay wuu xumaaday iska dhaaf noloshaada hore u wado Ilaahayna uu kula garab siinayaa taladaasaan idin siinaa videogan waxkana waa idin soo dhigi doonaa soo daawada amadan kulay ayada jawaabta laga sugi doonaa ilmahaas aabalaanta ay dhashay qaabka ay u dhashay daliil laga rabaa maxay yeelay diinta islaamka markii wax la sheego daliil xadiisi aayada la iska rabaa marka aayada iyo xadiiska idinka sugeena ama aan ka sugeena maama idinka muuqaalkan soo daawada hooyooyinka Soomaaliyeed Ilaahay qalbigooda ha u dajiyo Ilaahay nimanka xun ee lagu saliday lagu imtixaanay Ilaahay ha ka dhax saaro insha Allah muuqaalka halkan ku soo gowgoweynaya muuqaalka marka daawataan insha Allah like noo saara muuqaalkan sidoo kale subscribe saara gambaleelkana furta si idin soo gaaraan waxyaabaha aan soo gelinayo waa ma santiin daawashidayna dhamaantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay idin xifdiyo hooyooyinka Soomaaliyeed wiil baan haystaa labadayda wiil nabi Ciisa uu ku dhashay ayaan ku dhalay midna laga ma dhalin soo nabi marka maanta say ku yihiin Allah khalqu rabbi ba og hada gaari ma sha Allah ya kuma kitaabada Sweden gube kitaabada Ilaahay waa hadal aan maqlayo ma aragtaa caruurta kala carba leeyahay waxa leeyahay meesha muslim ma degana maanta waxa lagu muslim ma degana oo islaan ma degana oo qabiilkaaga wax aad ma joogo magaalada daarad wax la yiraahdo ma joogo oo ma joogaan eerid halkaas aan deganahay miyaa magaalada oo dhan oo human ba ma ahanba